السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبرنامج كيني حكتا وحبرشدا جامعتها دلكا يوغندا. وحمانتا مرتينو جامعة كامبالا يونيفرسيتي. وكهد دونو إن شاء الله تعالى مدن زبير محمود إسماعيل زبير شينة وكمد أرضيدا صوماليات مهم مدن زبير كسودو مدشا تلبيرسي. walaalkay Khalid aad baa u mahadsantahay waxaan runtii u mahadcelinayaa madasha Talabiirsi oo runtii madal daahfuran ka shaqeysa horumarinta bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Uganda gaar ahaan ardayda Soomaaliyeed oo mar walba u soo gudbisa waxyaabo baraarujinaya وقاضي أقونت هذا كور ولكن خالد أو مدح ugu sareeya oo mahad celinaya waxaan leeyahay barnaamijka isaga dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed oo haysan mar walba halka ka sii wada aad baan u mahadsantahay ana dhawahay aad baan u mahadsantahay mudane Zubayr barnaamijkeena hadii aan sii guda galno waa kuma Zubayr Maxamuud Ismaaciil walaalkay aad baan u mahadsantahay horta sida aad sheegtay magacaygu waa Zubayr Maxamuud Ismaaciil ku magac dheer Zubayr Shiine waa qof muslima waa qof Soomaaliyeed hadii aan noloshayda in yar aan ka falanqeeyo walow ayna wax buuran ama ninaan teetal soo qaban aan ahayn laakiin arday Soomaaliyeed ugu horeen waxaan ku dhashay magaalada Xingalool gobolka Sanaag sanadku markuu ahaa 1997 bishii shanaad shanteedii heerkayga waxbarasho waxaan ka soo bilaabay isla degmada Xingalool ee gobolka Sanaag anoo jira muddo 5 sano yaa laga kaxeeyay markii aan quraanka iyo waxyaabaha aan Xingalool ku soo bartay in waxa la geeyay caasimadda ganacsiga Puntland ee Boosaaso halka ayaan iskoolkaygii iyo waxbarashadeedii aan ku qaatay kuna dhameeyay iskoolkaygii markaan dhameeyayna waxaan hayaankayga waxbarasho u soo bedeshay dalka Uganda aan joogno gaar ahaan caasimadda Kampala halkan ayaan jaamacadda ka bilaabay haddana jaamacaddii ayaan wadaa oo sanadkii ugu dhameeyay ayaan ku jiraa marka walaalkay noloshaydu waa inta aan hadda aan ka taataabtino kale wax furan maahan aad baad u mahadsantahay mudane Zubayr waa taariikh aad iyo aad u qurux badan oo ku dheehan waxbarasho iyo hayaan aad iyo aad u wanaagsan inta kadib haddaan sii guda galno barnaamijkeena si ardayda Soomaaliyeed ee imaan doono wadankan Uganda kana bilaabi doono waxbarasho heer jaamacadeed si wax badan ay uga ogaadaan jaamacadda Kampala University waxaad u qeexi kartaa jaamacadda KU walaalkay Khalidow Kampala University runtii waa jaamacadaha dalkan Uganda ku yaala waa jaamacad kamid waana jaamacadda arday Soomaaliyeed oo fara badan oo dalkan halkan u yimid waxbarasho ay dhigtaan jaamacadda waxa la aasaasay 1998 heerar kala duwan bay soo martay maanta aynu 23 aynu joognaa waxay ka mid tahay jaamacadaha ugu sareeya ama kaalmaha koowaad kaga jira jaamacadaha dalka Uganda waxay bixisaa faculty kala duwan ay ka mid tahay wax la yiraahdo economics ay ka mid tahay public administration ay ka mid tahay human resource management iyo maadooyin kale oo fara badan iyo jaamacaddu bixisaa waxay leedahay qayb master oo isla Kampala ku taal oo laba campus weeye campusna wuxuu ku yaalaa Gaba campusna wuxuu ku yaalaa Matunda oo qaybta masterta Matunda ku taala qaybta bachelortana waxay ku taalaa Gaba walaalkay aad u mahadsantahay mudane Zubayr waa xog ardayda Soomaaliyeed ay ka faa'iidi doonaan wax badan ay ka fahmi doonaan jaamacadda Kampala University haddaan barnaamijkeena ku siisi karno jaamacadda faculty-yaasha ay bixiso faculty kaste qiimaha ay ku bixiso iyo sidoo kale sanadaha uu qaadanayo faculty-gaas maxaad noogu sheegi kartaa walaalkayow Khalid aad baa u mahadsantahay horta way kala duwan yihiin faculty-yada ay jaamacaddu bixiso sida aan hadaayato hadalkayga aan ku daray
maadaama ay kala duwan yihiin faculty-yada ay kala bixiso jaamacaddu iyo waxa u kala duwan yihiin qiimaha qiimuhuna wuxuu ku xiran yahay faculty-ga marka aad dhiganayso jaamacadda sanadka ugu horeeya jaamacadda KU waxay bixisaa ama qofku markuu dalkii ka yimaado ardayda Soomaaliyeed yimaadaan wax la yiraahdo fresh dalkii Soomaaliya uga naqaano oo ah in sanadka koowaad aad waxa weeye faculty-gii aad dhigan lahayd markaas lagu sii tababaro maadooyin general ah qaadato sanadka koowaad oo kale waxa qiimaha lacagta laga qaadaya oo kale ilaa adigu $250 lacag gaaraysa yaa laga qaadaya oo sanadka koowaad ah faculty-ga caadiga marka u timaado hadaan bilmasal aniga faculty-ga aan dhigto semesterkii koowaad oo kale waxa laga qaaday $350 semesterkii ku xigana waxa laga qaaday $400 halkaas oo ay ka tusayso marka inay semesteradu ay kala duwan yihiin haddaan su'aasha labaad aan u soo laabto oo ah intee sano ay kala qaataa waxay kala qaataan jaamacadda KU sidaan xogta ku hayaan ahayna arday dhigta sanadkii 2 semester yaa la dhigtaa sanadka koowaad oo kale bishii 8aad ay ardada qaataan oo la furaa admissionada jaamacadda haddii uu qofku uu ka dib dhaco marka retake bay qaataan oo ah bisha labaad sanadku xiga labadaas semester ayay jaamacaddu bahalkaysaa marka labadaas retake ayay qaataa retake qaybta kale marka waa ka walaalka aad u maasantahay mudane Zubayr waa xog ardayda Soomaaliyeed insha Allah taala ay ka faa'iidi doonaan Zubayr kooska aad ka baratay fahan yar oo kooban hal ardayda Soomaaliyeed u marin kartaa halkan si hadhow ardayga rabo inuu bilaabo kooskaas oo kaleeto xogaha fahan yar oo kooban asagoo ka haysto uu bilaabo walaalayow runtii horta way kala duwan yihiin dadka Soomaaliyeed qof walbana de dooq uu leeyahay ardayda Soomaaliyeed dalkan timaado qofka waxa markuu yimaado oo kuwa caqabada ka qabsata caqabadaas oo ah warniyahu maxaad dhigataa maadaama uu ka soo baxay marxalad secondary aan ahayn marxaladii levelkii jaamacadeed uu u baahan yahay qofka koowaad ama dad badan buu la tashanaya ama rotation ma haystaba marka dadka Soomaaliyeed horta waa ku weeraraan laakiin dadka Soomaaliyeed waxa uga codsanaya ardayda Soomaaliyeed dalkan Uganda imaanaysa in ay bartaan wax iyagu ay jecel yihiin oo lubugooda ah dadka waxa waxyaabaha dhici karta ardayda Soomaaliyeed waxa kamid ah in uu qofkii una garanayn wuxuu dhigan lahaa بالمثال wuxuu ku oranayaa saaxib adigu faculty-ga dhigata inuu faculty-ga aan dhigtaa baa leedahay waxa leedahay HR ma kala dhigtaa ilaa HR ma see tahay dalkii ama qof wuxuu baranayaa inuu dalkii shaqo ma laga helaya oo dalkeena Soomaaliyeed waxa weeye u ducaynaa mar walba oo wax laga yaabaa dawlad ma jiro buuran laakiin inta waxa weeye alxamdulillah rabbil caalamiin marka qof wuxuu ku fikriyaa warbiri maxaa ku shaqaysataa maxaa waxa weeye noloshaadii ku horumarisaa marka caqabado badan baa horta iska yimaada laakiin faculty-gan anigu waxaan ku doortay anigu dooq aan waxa la yiraahdaa wax aan jeclahay maadaama aan faculty-gan human resource management ay tahay faculty-yada dalkeeni qariibka ku ah mudooyinkii ugu dambeeyay 60 sano ugu dambeeyay waxa laga yaabaa inay aad ugu soo bateen laakiinse waqtiyadii hore wuu koobnaa haddana qofku marxalado badan weeye buu kala marmaraya waxa laga yaabaa shaqooyinkan inay kala duwan yihiin marka horta haddaan in yar khulaaseeyo ama in yar aan introduction kaga bixiyo maadada tani waa waaxda shaqada iyo shaqaalaha human resource management waa waaxda shaqada iyo shaqaaluhu marka maxay tahay waxa weeye shaqada iyo shaqaaluhu in qof walba oo maadadan bartay uu ka shaqeyn karo shaqo walba oo loo diro shaqo walba markaan ku leeyahay haday noqoto mid dawladeed waxa fiisadu ay haji aalamku haduu leeyahay kale waa ka shaqeyn karaa wuxuu ka shaqeyn karaa oo kale bareefado meelo loo leeyahay oo dad gaar ah ay leeyihiin wuxuu ka shaqeyn karaa oo kale oo xafiisyadaas oo kala meelo shareholders ayuu ka shaqeyn karaa shaqada looga baahan yahay qofka human resource management baranaya ama barta waa inuu shaqaalihii company-ga kale maxaa la yiraahdaa uu isagu diiwaan geliyo ama shaqaalihii oo kale company-ga kale wuxuu leeyahay maxaa ka dhiman shaqaale nooceeya qofkii markuu yimaado oo kale uu isagu qaabilayo inaha iyo weeye waxyaabaha faculty-gaas ugu muhiimka yahay hadaan ku soo celiyo shaqo walba oo qaban karo
hadday dowlad noqoto hadday maxaa la yiraahdaa hay'ado noqoto hadday noqoto company gaar loo leeyahay mid shares marka walaalkayo waa intaas soo dhaweynaya aad u maasan tahay mudane Zubayr Maxamuud Ismaaciil waa facultygaas insha Allah ta'ala arday ku fikiraya inuu bilaabo faham fiican inaad ka siisay oo uu si fiican uga dhargi doono ayaan rajeynayaa waxa inta noogu eg barnaamijkeennii ku wajahnaa jaamacadda Kampala University aad u maasan tahay mudane Zubayr sida waqtigaada qaaliga aad noo siisay walaalaha mudan oo ku soo dhaweynaya thank you